السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين سودو هذا مانتا توبيك عصب بان كهدليا إن شاء الله وكسابسن كينيا. سودو هذا كل جين وايد سلامي. رمضان مبارك جين. وحن كهدلينا مانتا waddanka Kenya oo shacab iyo dawladba campaign ugu jira si dalka Soomaaliya loo boobi lahaa campaign marka bal horta inta dadku ay soo wada galayaan waxaan rabaa inaan idin sii daaro hadda ka hor hees ay caruurtaydu u tiriyeen Kenya oo xilligii uu buuq socday ay qaadeen marka heestii baan idin daaraya xogaa kadibna programkii baan gelaynaa insha Allah. بسم الله waxaan dhageystay cajalad YouTube-ka ku jirta oo aan idin daari doono oo nimanka la yiraahdo reer Kenya ay duubeen oo ay kaga hadlayaan waddanka Soomaaliya iyo badeena ay kaga hadlayaan. Hostilities. These questions are on people's minds all around the world. Let's try to get answers from today's guests, both of whom have reported extensively on and in Iran. Robin Wright is a contributing writer to The New Yorker. Her book on Iran is The Last Great Revolution. Jim Sciutto is CNN's chief national security correspondent and the author of a terrific new book, The cajaladdan wax yar ila dhageysta. This is the Fifth Estate, a conversation between young African scholars from the Fortal School of Government and Professor Mutahi Nguni. Today, we, the people of Kenya, will serve public notice to the government of Somalia. And we will do it because on more than one occasion, the government of Somalia was formed and operated from Nairobi. After stabilizing them, now they have started provocations. Not funny. This notice is served with a copy to the government of Norway and other Muzungu colonizers of the sea. We want to give them to understand that this is not Berlin of 1884. The partition of Africa will not become the partition of... intaanan aan aada u gudbin gabadhu waxay leedahay waxaan notice u diraynaa digniin siinaynaa
dowladda Soomaaliya waxaan kaloo digniin siinaynaa nimankii gumaystayaasha ahaa ee dalka yaga haysan jiray oo qaybsaday waxay sheegaysaa Kenya sheegaysaa dalka yaga haysan jiray iyo Soomaaliya iyo Mzungu area-da la yiraahdo waxay leedahay oo ku hanjabaysaa arrintaani ma aha 1884 Berlin shirkii lagu galay ma aha anymore waxay ka hadlaysaa Berlin shirkii lagu qaybsaday buu ahaa waddanka Soomaaliya claimkooda iyaga doodoodu hadday tahay Kenya waxay ku dhisan tahay Soomaaliya dhul baa nagaga maqan bad maaha kaliya dhul baa nagaga maqan bal waa arki doontaan oo waa maqli doontaan dhul Soomaaliya ay leedahay Soomaaliya Kenya ay leedahay baa Soomaaliya ku maqan ma aha gobolka NFD Soomaaliya iska leh maaha Soomaaliya dhul naga haysato weeye marka Berlin qaybtii la qaybiyay dhulka yagii baa la dhacay oo Soomaaliya la siiyay iyaga version koodu waa saa sheeko waliba two sides bay leedahay every coin has two sides side koodu waa ka bal dhageysta sii dhageysta our waters 0. A copy of the notice is also sent to the beloved people of Somalia, a people we call our brothers, a people we have embraced, nurtured, and flourished. halkan waxaa lagugu sheeganayaa in abaal lagu galay abaalka lagu galayna uu yahay number 1 inaad brother tahay oo lagu soo dhaweeyay walaalnimo lagu soo dhaweeyay number 2 in lagu dhaqaaleeyay oo lagu kobciyay dhaqaalahaaga in la kobciyay oo Kenya ay kobcisay dhaqaalaha dalka Soomaaliya ayay gabadhu sheeganaysaa A people we have grown from simple refugees to owners of Isili, Nairobi's second CBD. qadiyadan waa qadiyad very important ah gadaalna waad ku arki doontaan Soomaalidu dadka qurbaha jira oo Soomaalida ah waxa ay ahaayeen life link bay u ahaayeen dadka Soomaalida ah ee wadankii ku haray khaasatan dadka qaxootiyada jooga Kenya dhul ahaan maadaama portion Soomaaliya kamid ah ay haysato iyadii Ethiopia waxay ku khasbanaadeen dadkii soo qaxay inay hoosti garayaan oo ogolaadaan inay dhulkooda joogaan midda kale waxay kamid yihiin wadamadii convention-ka saxiixay oo ogolaaday inay qaxooti aqbalayaan UN-tuna ay ku fangarayso oo lagu biilo dhexdooda dadkii noocaas ahaa oo Soomaalida ay soo galay wadanka waxaan la soconaa Kenya lacag ay ka qaadato askartoodu ka boobaan maahe way leeta kitambulishiyaako leeta kibanda abo leeta besa wax lacagoo laga boobo oo ama la birilqaysto ama askartu ay ka qaado qori iyo system laga qaado mooye Kenya lacag ay qaxooti siisay ma jirto waxa kaloo muhiim ah in la cadeeyo Kenya marka ay qaxootiga hoosti garaynaysa billions and billions of dollars by UN ku siinaysa marka iyaga ku noolaa qaxootigu inuu wadankooda joogo oo dhaqaale ka soo galay number 1 number 2 Soomaalidii markay wadanka degtay oo iska joogtay waxay samaysteen Soomaali waa dad active waa dad shaqo yaqaana waa dad xamaasho waa dad businesska ku fiican ganacsi bay furteen Kenya markii laga bilaabay dhaqaale businesska laga bilaabay ugu horeysay waxay ka bilaabatay hotel inta la kireysto qolkiiba 4 qof 5 qof inta isla kireysato ay sariira dhigaan sariira hotel buu ahaa meesha loo sariirihii yaalay sariirihii ay dhar saaraan oo dharka ay dadka ka iibiyaan halkaas ka bilaabatay bal haddana waxay maraysaa Soomaalidu inay businessyada ugu waaweyn iyo dhulalka guryaha ugu badan iyo guryaha ugu qiimaha badan iyo yani real estate-ka isli inay power xoog leh ku yihiin ilaa ay dadka qaylinayo raba inay Soomaaliya isha farta ka geliyaan oo ay camcamiyaan oo bajiyaan ay farta ku fiiqayaan isli ma ilowdeen isli billions of dollars oo Soomaaliya ay leedahay baa ku jirta bal sii dhageysta They must stop Mogadishu.
Lastly, this public notice is served with a copy to the dadka qaxootiga ah oo islii degani, they must stop Mogadishu. iyagu waa inay shaqo qabtaan, waa inay dowladooda naga ceshadaan. warkaas ma idin dhacay? qaxootigaa loo dhaaranaya leeyahay haddii aydinan Mogadisho idinku joojin idinkaas yaqaan. President of the International Court of Justice, ICJ. He is a citizen of Somalia. And the government of Somalia wants to steal part of our territory through a court whose president is from Somalia. This qodobkaas waxay rabaan Kenya rajo ma qabaan badan inay maxkamadda kala kulmayaan. marka waxay rabaan maxkamadda inay tashwiish geliyaan oo adduunka ay u tusaan maxkamad bias inay tahay. maxaa yeelay ninka presidentaha ka ahi waa nin Soomaaliya. they want to undermine, laakiin waxay rabaan inay ka boodaan oo ay qariyaan ninka madaxweynaha ahi koortigoo dhan buu madaxweyne u yahay, laakiin faylka Kenya iyo Soomaaliya isku haysato, he has nothing to do with it. judge kala haysta completely waa ka madax bannaan yahay, because there is a conflict of interest and they are more professional than these young people or school of government ka soo hadlaya oo dowladooda babadska waa la rabo dadkooda inay influence gareeyaan oo ay kiciyaan. laakiin ujeedada ay leeyihiin waxa weeye to undermine the legitimacy of that court. So the decision is already been undermined. markii decisionku soo baxo oo go'aanka ay tiraahdo Soomaaliya badeeda iyada iskale, Kenya back off la yiraahdo, waxay rabtaa inay ku doodo already ay ka sii hadashay ninkan oo bias ah oo Soomaali ah oo dalkiisa u hiilinaya baa maxkamadda madaxweyne ka. therefore ma aqbalayno. saa ogtihiin judicial systemku madaxweynuhu waa honorary position, laakiin madaxweynuhu managementugu rangareeyaa ee ma rangareeyo caseska. case file kasta markuu soo dhaco randomly baa judge u qaataa oo loo siiyaa judge. judgeka hadda hayaa judgeka la siiyo haddii uu arko personally inuu haysto conflict with the case waa inuu dhiibaa. that's ethical. ma haysan karo. ninkan hadda Cabdiqawi has nothing to do with the case between Somalia iyo Kenya, laakiin they want to undermine. that is their plan. This is not even clever. We serve notice to the government of Somalia, therefore, to tell them this: not an inch more, not an inch less. kelmadda not an inch more, not an inch less waa kelmadda la rabo inaguna inaan dhiraahno. ujeedadeedu waxay tahay hal inchi oo aan leenahay idinma ogolin. hal inchi ama hal intaa in dherer la eg oo dhul ah ama bad ah oo aad leedihiinna ma rabno. laakiin that's not the reality, that's the fact. factigay ka soo horjeedaa. that's the opposite of the fact. it's a fake news. Yes, not an inch more, not an inch less. This is what Jomo, our founding father, told the government of Somalia. In the 1960s, they tried to steal 1/3 of Kenya, also known as the Northern Frontier District. sidaad u jeedaan intaa yarta oo guduudan oo la calaamadiyey oo ay ugu yeereen Northern Frontier District waa dhul ay leeyihiin Soomaaliya damcday inay dhacdo oo ay dib u qaadato. waa dhulka NFD qayb ka mid ah oo ay iyagu u bixiyeen Northern Frontier District. that was 1960s. dowladdii hadda ka hor markaan ka hadlayay, dowladdii Cumar Carte Qaalib ayaa ogolaatay inay ka tanaasusho, iyadoo ay almost ogolaadeen Kenya ay ogolaatay inay dhulkaas soo wareejiso. that's the frontier meesha u bixiyeen. waana meesha ay badda doodeedu ka bilaaban doonto. dooda baddu meeshay ka bilaaban doonto xariiqdaas halkaas ay u jeedaan oo ay rabaan iyagu inay xariiqda sidaa u wadaan
adiguna aad xariiqdaada rabtid saa inaa u wadid dhulka laysku haystana ay tahay triangle-ka halkaa kasoo bixi doona hadhow baan arki doonaa hadhow baynu arki doonaa meeshaas iyaguna waxay rabaan in maadaama leynkoodu saa yahay saa loo wado annagana maadaama leynkeenu saas yahay in saa loo wadaa rabnaa arrintaasoo dood keeni doonta oad arki doontaan ayay hadda ka hadlayaan northern frontier laleeyahay. We beat them into submission. Now they want part of our waters, and they want to steal it by pretending to be a victim nation. But here is the truth. They are not a victim nation. They are an expansionist nation pretending to be a victim at war. The maapkaas waxay la tahay waa garanaysaan maapkan waa greater Somalia maapka la yiraahdo Soomaaliya dhulkeedii guud oo isku dhagan weeye qaybtaana Kenya goosatay qaybtaasna Ethiopia goosatay marka 7ku halkaas ka samaysmay saas u samaysmay intaana Kenya goosatay intaasna Ethiopia goosatay maapkaas isaga ah oo ah maapkii Soomaaliya loo qaybiyay shanta ninkan wuxuu ugu yeeray expansionist nation way waa nation raba dhul uusan lahayn inuu soo boobo ayuu Soomaaliya ku sheegay taasuu ka wadaa expansionist maapkaasna waa lagu tusay waa la akhriyayaa hadda waa laga sheekeynayaa documentary laga samaynayaa documents baa laga qorayaa book baa laga qorayaa berito waxaa lagu doodayaa inaad adigu tahay qofka aggressive-ka ah oo aggression-ka wada oo dhulkaas oo uusan lahayn raadinaya haddana waa laga dhaadhicinayaa ama dadka loo akhriyaya. The government of Somalia and its Muzungu colonizers of the sea have no land to expand to. They have moved from partition of Africa to partition of the African oceans. And the government of Somalia is the puppet broker of this scheme. And qof walba in 6 months qof walba wuxuu sheeganayaa doodiisa Soomaaliya waa dawladda babadka ah oo gumaystayaashu ay dabada ka soo wadaan oo ay rabaan gumaystayaashu inay Afrika ku qaybiyaan badeeda ujeedada ka dambaysa waxa weeye koortiga ICJ wixii ka soo baxa waa wax gumaystayaal ay wataan Somali presidentna uu madax ka yahay nin ah Soomaaliya therefore cadaalad ma aha mana ku qanacayno haddaanu nahay Kenya that's meesha loo socdo. Kenya will be landlocked because of Somalia. Yes, as Kenyans are chasing a paper tiger revolution led by some drunk poet, our access to the Indian Ocean will be blocked by Somalia through the International Court of Justice. In fact, the lifeblood of Uganda, DRC, Rwanda, South Sudan, Burundi, and Ethiopia will be handed over to Somalia. What's more, wadamada uu tiriyay horta wuxuu yiri Kenya will be landlocked. Kenya waxay dood kula jirtay oo ay bad isku haysteen muddo dheer Tanzania waxa iskhilaafsan meeshii isaga yimaadaan baa saas oo kala triangle ah triangle-kii ayay Kenya waxay rabtaa in sida loo wado xariiqda badda Tanzania waxay khasbatay in saa loo wado marka Tanzania markii badeeda la raaco badda Soomaaliya laynkeedana la raaco hal triangle oo yar baa ka soo haraya oo gudaha ah triangle-kaas gudaha ah Kenya iska leh labada dhinacna Tanzania iyo Soomaaliya iska leh oo borderkooda uu isa soo gaaraya borderka markuu isa soo gaaro Kenya iyo Tanzania iyo Soomaaliya isa soo gaaro Kenya gudaha ku jirta waxay ku khasban tahay badeeda haday rabto inay u gudubto waa inay weydiisataa either Soomaaliya or Tanzania inay dhex marto u ogolaato kadibna canshuur iyo lacag laga qaadaa daaris waxa ay ka qeylinayaan oo ay ka buuqayaan oo ay dacwada ka qabaan maadaama Tanzania doodoodii ay shaqeyn weyday Tanzania dawlad dhisan oo xoogeedii iyo ciidankeedii ay tahay aysan ku dhicin inay weeraraan Soomaaliya aggressive ku yihiin oo ay rabaan marka inay iyada weeraraan labada dhinac midkood waa in la iska riixaa cida hadda la riixi karo waxa uu Soomaaliya meeshaas way meesha u socdaan war ka sii muhiimsan baad maqli doontaan bal ila dhageysta. Akema,
Kirinyaga Road, and River Road will all become colonies of the government of Somalia, like Isli. This is not a clever joke. It is an act of law. Isli waa colony ama gumaysi Kenya ku dhex yaala. Warkaa waa maqasheen. Isli waxaan u aragnaa bay leeyihiin haddaan nahay shacabka Kenya gumaysi nagu soo dulay oo dalka iyagii dhex degan oo qayb naga haysta. Waa Isli. Reer Isli waa inay si fiican u dhageystaan warkaa. And it will happen in 6 months. Traders of Kenya, we serve you notice. Now we will get to the point. Somalia collapsed, then we embraced them. We gave them Isili and called it Little Mogadishu. If the people of Somalia could not blossom in Somalia, we ensure. Somalia way burburtay. Waa soo dhaweynay markay dalkoodii ku burbureen Isli baan siinay. Isli waxay ugu yeereen Little Mogadishu. Muqdishadii yarayd markay wadankoodii ku noolaan waayeen oo ay ku kobci waayeen we made sure inay Kenya dhexdeeda ku kobcaan oo ay Isli meesha la yiraahdo ay ku barwaaqoobaan. That they grew big in Kenya, and they grew big. But now the government of Somalia has turned against us. Supported by some colonizers, they took Kenya to the International Court of Justice in August 2014, a court whose president is Somalian. Then they claimed that the Indian Ocean portion owned by Kenya is actually theirs. They claimed that the ocean boundary between Kenya and Somalia should slope diagonally and not straight. Saan hadaya idin sheegay dhulka Soomaaliya iyo Kenya ay iska galaan waa halkaas markaa fiirisid intay hadda haystaan dhulkeeni iskaba ilow inay haystaan iyagu ay leeyihiin ka soo qaad halkaa markaa fiirisid laynkaasi saas u socdaa sidaas maxaa saa loogu celiyay because jiq bay ku tahay laynkaan saas u soo socdaa halkaanu imaanaya Soomaaliya wadadeedii wataas iyaguna meesha Tanzania saasay u samaysatay wadadeeda oo halkaas dhulka mara meeshaas ay isaga yimaadaan labada wadan way siman tahay marka sinaantaas ay ku wadeen Soomaaliyana saasay ku soo socotay Kenya intaas u soo hartay inta kaliya u hartay oo dhexda ah waxay noqotay marka officially landlocked technically landlocked inkastoo ay bad leeyihiin badoodii ama waa inay Soomaaliya dhex maraan ama waa inay Tanzania dhex maraan marka maadaama Tanzania ay khasabtay inay saa u socoto bay waxay rabaan mid parallel ah si ay u helaan wada iyaga u banaan oo ay leeyihiin oo dhexda ah say u helaan. It has always been. If Somalia wins the case at the ICJ, then our new diagonal boundary with Somalia will meet our straight boundary with Tanzania. When this happens, Kenya will officially. waxaan rabaa inaan maqashaan kelmadda ay gabadhu hadda tiri waxay tiri Soomaaliya laynkeedu waa diagonal waa layn qalloocan oo la qalloociyay laynka Tanzania laakiin waa layn straight ah oo toosan. The fact is both lines are straight. Laynka Kenya Tanzania waa straight laynka Soomaaliyana waa straight. And not straight, the way it has always been. If Somalia wins the case at the ICJ, then our new diagonal boundary with Somalia will meet our straight boundary with Tanzania. Saa u jeedaan laynkan Somalia ka imaanaya waa lane straight ah. It's more straight than the Tanzanian one.
kan waxay leedahay waa lane straight ah dacwo kama qabaan weligoodayna dacwo ka qabi jireen looks like inay ka tanaasuleen ama ay rabaan inay iska damiyaan frontigaas laakiin kan oo aysan weligood dacwo ka qabin baa dowladihii babadska ahaayoo soomaalida u shaqayn jiray oo ku meelgaarada ahaa baa iyo dadka hadda qaylqaylinayo oo qaarkood ay leeyihiin mucaarad baa nooga waddanka rabna inay madaxweyneyaal ka noqono ayaa u saxiixay inay aqbalaan inay halkaasi dood ku jirto oo dood iyo buuq ay leedahay maxkamadii la tegey waxay ku eedeynayaan Soomaaliya inay maxkamad geysay Kenya actually that was their interest iyaga lacag ku bixiyay oo dad kala shaqeeyay Soomaali ah oo madaxweyneyaal iyo maamul ahaa inay Soomaaliya iyo Kenya ay dacwadooda ka dhigaan dacwo legit ah oo ay maxkamad furaan case furaan iyaga ka dambeeyay hadda ka hor baan ka hadlay ku noqon maayo dad baa u qaba dowladii maxkamadda geysay Kenya inay dowlad fiican ahayd iyaga actually u shaqeynayeen wax badan baa soo bixi doona waad arki doontaan bal sii dhageysta. When this happens, Kenya will officially be a landlocked country. We will no longer have access to the high seas. Any ship entering or leaving Kenya will have to ask Somalia for permission. And given that Somalia is partly controlled by Al-Shabaab, the border posts in the ocean will also be controlled in part by Al-Shabaab. The pirates of Somalia will control all ocean traffic going to Rwanda, Burundi, Uganda, Congo, South Sudan, and Ethiopia through Mombasa. The pirates will also control. Somalia waxaa la rabaa indhaha caalamka in la tuso oo ay u arkaan inay yihiin pirates iyo al-shabaab wax kaloo legitimacy aysan lahayn labo waa qodob koowaad oo hadda intay sheegtay qodobka labaad wadamada ay tirisay oo landlocked ka ah they have nothing to do with this argument laakiin they want to grow friends iyo asxaab si ay asxaabtaasi marka u aqbalaan inay iyaga la dhiil gareeyaan Soomaaliyana ay uga baqaan waa in la tusaa in wax la yiraahdo al-shabaab iyo pirates ay joogaan Soomaaliya therefore aan la dhiil gareyn karin ma pirate baa la dhiil gareyn kartaa maya ma al-shabaab iyo dad terrorista baa la dhiil gareyn kartaa maya therefore annagana support gareeya international community ga culays nala saara aan ka adkaano Soomaaliya maxkamadda hana loo ka hiiliyo therefore inagoo wada kulligeen oo isla soconna aan guuleysano Tanzania may maraan dadka kale oo Tanzania haddaysan Soomaaliya rabin inay maraan may Tanzania aadaan ayadana shaki iyo walwal bay gelinayaan bal dhageysta iyadana lapse it. And to this judicial nonsense, if it happens, we say not an inch more, not an inch less. We, the people of Kenya, serve notice to the government of Somalia and its collaborating colonizers. The colonizers that are planning to buy our oil fields in the ocean from the Somalians. We want to tell them this: not an inch more, not an inch less. If Somalia is awarded the equivalent of 42% of Kenya's land by the ICJ, this will be a declaration of war between Kenya and Somalia. And we cannot fight Somalia if their refugees are still in our country. hadalkii aan hadaya idin sheegay oo ku saabsanaa dadka Soomaalida ah oo Islii iyo Kenya investmentiga billioniska gashaday hadal ay u baahan yihiin maqlaan way waxay tiri Soomaaliya war baan la galeynaa hadii maxkamadda la xisaabiyo laakiin warkii ma bilaabi karno dagaal ma gali karno ayadoo qaxootigoodii uu waddankayaga dhex joogo it's like Soomaaliya qayb dhul ah oo kamid ah iyo shacab Soomaali ah oo Kenyan inaysan jirin hadalka la hadlaya maxaa loola dan leeyahay dadka shacabka oo Kenya waxa la rabaa in laga dhaadhiciyo hadii ay bilaabato any kind of book oo bilowdo in lagu yaaco Islii oo dadka la boobo lana laayo dadka shacabka ah ujeedada loo dan leeyahay dhan waa inta oo hadalkan Islii iyo la isugu xirayo iyo colonizers iyo al-shabaab iyo pirates iyo Soomaaliya
waxaa la rabaa waxay dhaheen islii waa gumaysi mandaqad gumaysi oo ku dhex taalla waddanka yaga therefore iyagoona dhex degan dagaal ma qaadi karno soomaaliya lama diriri karno hee iyadaan ku bilaabaynaa kow dagaalku wuxuu ka bilaabanaya halkaas wax ka daran baa soo socda sii dhegaysta Similarly, we cannot go to war with Somalia and continue to host their lucrative businesses in Isli. This cannot happen. We are not stupid. In fact, our government should now demand the return of Jubaland to Kenya. We say so. warkaa waa maqasheen soo maha waa maqasheen dalka yaga Kenya dowladayadu waa in ay dalbataa Jubaland in naloo soo celiyo bal warkaasi fiican u dhageysta meesha hadal baa iga raacay dadka Soomaalida ah ee Kenya ku sii dhuxdhux leh oo leh maamulaanu nahay iyo madax baanu nahay la socda oo ogaada inay waxaan qayb ka yihiin oo ay lacag ku qaataan cash jeebkooda soo galaana uu kala qiimo badan yahay waddanka iyo dalka horta taa la socda waxa kale ogaataan Kenyaatiga Jubaland jooga uma joogo Kenya ciidamadeedu uma joogaan inay Soomaaliya ka dhiciso al-shabaab oo ka badbaadiso la xoreeyo Jubaland uma joogto qodobkaasi u joogaan Jubaland waxay ku doodayaan inay iyagu leeyihiin jeeray Jubaland qaataana baddaan ma qaadan karaan badda laynkeedu waa diidan yahay inuu iyada raaco maxaa yeelay laynka waa u jeedaan laynku wakaa Because in 1924, Britain chopped off a slice. laynkaani oo noo dhexeeya haddii laynkaa toos loo raaco laynkaasi Kenya waxba uma aha waxna tari maayo halkaasuu marayaa saasuu noqonayaa laynku soo ma arkaysid kii Tanzania waxaa ka yimid halkaasuu kula kulmayaa afwan This is a moment you plan for. raalli ahaada baalkii baa To iga start your qaloosan investment plan, find an advisor at massmutual.com. waxaa meesha ka socdaa wax la heli karo ma aha arrin weyn weeye waxa meesha la wado haddii aad dhegaysataan idinkaaba yaabi doona The 1924 border created by the Anglo-Italian Treaty. To date, Somalia has not recognized this border and refused to recognize the 1924 border created by the Anglo-Italian Treaty. dooda hadda ay gabadhu wado waxay leedahay 1924 baa waxaa heshiis galay Talyaaniga iyo Ingiriiska Talyaaniga iyo Ingiriiska waxay sameeyeen new border bay sameeyeen borderka cusub dhul Kenya ay leedahay baa inta la goostay baa Soomaaliya la siiyay dhulkaas isaga ah oo 1924 kii la siiyay waa dhulka la yiraahdo Jubaland remember Jubaland waxa la yiraahdaa gobolka NFD oo dhan baa Jubaland la yiraahdaa Jubaland iyagu waxay u yaqaaniin inta hadda Jubaland oo ah Kismaayo iyo Bu'aale inta la yiraahdo iyo inta hadda gobolkan Jubaland la baxay magaca la yiraahdo bay iyagu Jubaland u yaqaaniin waxayna u arkaan laankaas haddii ay qaataan inay badana qaadan karaan
oo badii ay shaqaynayso sababtoo ah laynkii baa wuxuu kasoo To durkayaa date, Somalia has laynkii baa wuxuu kasoo durkayaa saad arkaysaan hadda laynku waa halkaan saasuuna u samaysan yahay laakiin haddii xagga laga dhigo waxay dhihi karaan dhulkayagii waa kan dhulkoodii waa kan halkaasaa la isugu yimi dhexdhexaad halkaa hala maro tanzaniana halkaa ha marto meel dhexe oo weyn oo iyagu ay leeyihiin bay helayaan basically waxaa kaloo ku jira dhul weyn bad weyn oo weliba qeybta hadda ay rabaan inay ku darsadaan waa qeybta ay xooluhu recognized this uu ku border. jiro And if they have not recognized it, it means that the original border before 1924 is the legitimate border. This also means that our acreage of the Indian okay waxay dhaheen Soomaaliya 1924 borderkii la sameeyey ma ictiraafsana of course we don't maxay tahay sababtaana u ictiraafsanayn ayaga marka maxaa uga soo baxay inaana borderka ictiraafsanayn waxaa uga soo baxay Ocean waxaa uga soo baxay inay Jubbaland iyagu leeyihiin Jubbaland hadday yeeshaana sida ay sheegaysa gabadhu waxa increase garoobaya sheerkooda badeed halkaasaa wadadii maraysa kii Tanzania waa kan dhulkaas oo dhan bay yeelanayaan maraakiibtoodu si caadi ah intay Indian Ocean-ka uga yimaadaan bay wadankoodii toos u soo galayaan that is iyaga doodoodu laakiin sababta aysan Soomaaliya u ictiraafsanayn ma sheegayaan Soomaaliya waxaysan u ictiraafsanayn because Soomaaliya borderkeedu xaggaa weeye halkaan maaha waa dhankaas waa all NFD gobolka Northern Eastern ay yiraahdaan iyagu oo dhan weeye ma ujeedaa pieces. It is that simple. If they aggress, we aggress. For every action, there must be an equal and opposite reaction. If Kenya becomes landlocked in 6 months, forget lapses and Turkana oil, unless we want to share its proceeds with the pirates of Somalia. Uganda, Rwanda, Burundi, Congo, and South Sudan will also move to the Tanzanian ports to avoid taxation from the pirates of Somalia. And maybe waxay dhaheen Tanzania qaybtan idin sheegayo aan u socdayna waatan waxay dhaheen haddii ay maxkamadda nagaga guuleystaan Kenyana wax ay noqoto landlocked ay noqoto iska ilow projectigan Norway ay heshiiska kula gashay Kenya oo ay rabto inay si shorekeena ay kaga qodato ceelal baa la yiraahdaa projectiga hadda ay ka hadlaysa projectigaas isaga iska ilow bay tiri forget China waxay gelisay billions of dollars dekada Mombasa iyo hadda badda Kenya oo dhanna waxa maamulo iska leh technically oo sheegan kara oo hundreds of years haysanaya China therefore waxay dhaheen projectigaas oo ay dadka ku maslaxaan oo intaas oo bilyan la geliyay oo ay leeyihiin oil baan soo saaraynaa oo lacag baan yeelan doonaa barwaaqan galayna ay dadkooda ku dhahaan projectigaas iska iloobay tiri number 1 number 2 hadii la waayay taangigii badda ahaa oo la qodan lahaa maxaa u soo haray Turkana u soo hartay Turkana maxaa ku jira 600 oo milyan oo barmiil baa ku jirta baa la yiri qiyaas ahaan 600 oo milyan areada Mandera Basin ka la yiraahdana intoo kala ku jirta waxoo dhan iyama lagu dhamaysanaya hadii bas ay soo baxaan bay tiri Turkana wadamadaas oo dhammi way ina ka tagayaan waxay aadayaan Tanzania si ay uga cararaan taxation-ka ay ka qaadanayaan piratesku Soomaaliya waa pirates iyo al-shabaab xurmo kale ma leh magac ay u yaqaaniin oo ay ku sheegayaan waa either pirates or al-shabaab therefore lama deal garayn karo adduunku lama deal garayn karo wadamadaas ay waxay rabaan inay cabsi geliyaan si ay warqado u qoraan oo ay international community iyo dadka la yiraahdo UN ta ugu qoraan oo yiraahdaan Soomaaliya khatar annagoo dhan nagu soo fool leh weeye waa in si loo gala oo wadankii ma garanaysaa si un xal loogu hela ujeedadooda waa intaa midda kale waxay leeyihiin Tanzania iyadana canshuur qaaliyay cirkay geynaysaa maadaama xagga laga soo cararay pirate iyo al-shabaab looga cararay iyaga la aadaya annaguna waa xirannahay iyaga hadii la aadadi kale waa inaan wixiina ka soo baxaan wax ka siinaa
pirates. This is why Tanzania and Somalia are discussing their imaginary border Soomaaliya iyo Tanzania baa waxay hadda ka shirayaan bay leeyihiin oo heshiis ka wadaan borderkooda badeed oo imaginary-ga ah bay leedahay iyadoo imaginary-ga fake aan jirin bay ka shirayaan say u maamulan lahaayeen oo u wada nabadaysan lahaayeen haddii ay ku heshiyaan Kenya Tanzania iyo Soomaaliya ay ku heshiyaan badooda ay wada difaacdaan Kenya cidlay taagan tahay banaanka u soo baxaysa dawladdii marka Soomaaliyeed baa heshiis kula jirta bay leedahay iyo wada hadal kula jirta Tanzania. Indian Ocean. If the ICJ rules in favor of Somalia, Tanzania will gain big time. Everyone, including Kenyan businessmen, will move to the Tanzanian ports. But there is another thing. Did you know that for millions of years, minerals have been washed from our land to the Indian Ocean, and that these minerals are kilometers deep? If the colonizers qaybtaana waxa weeye waxay ka hadlayaan haddii nala ka qaado badda hadda baddaas nala ka qaadayo waxa ogaataan minerals annagu aan leenahay oo dhulka yaga ku jiray baa intuu sinkigareeye badda dhex galay oo kilometers deep u galay waxa yagii macdantayadii halkaasay ku jirtaa in naloo soo celiyaan u baahannahay si naloo haddii nala ka qaado baddana naloo soo celin maayo therefore haddaad tihiin shacabka Kenya ogaada billions and billions of dollars baad loos garaynaysaan sheekadaasi waa sheeko horta cusub oo documentary ah documentaryga waxaa sameeyey School of Government of Kenya waa propaganda ay dawladdu fangaraysay propaganda ay wado jaamacadda dawladdu ay wado School of Politics in Kenya ayaa wada waxaan rabnaa marka inaan wax yar ka sheego Soomaaliya ayadaa la isku mashquuliyey niman jeebkoodii weynaaday iyo afkoodii qalbigoodii iyo maskaxdoodiina ay yaraatay baa dadka hor ordaya dad aan damiir lahayn haba yaraatee wax ay ka naxayaan aysan jirin cid ay dan ka leeyihiin aysan jirin dhul ay dan ka leeyihiin aysan jirin oo kulligood traitorisa baa waddankii madax ka noqday yacni musiiba ina haysata ilaahay baan leenahay oo horta ilaahay subxaana wa tacaala ina hoojin maayo dad muslimaan nahay ilaahay subxaana wa tacaala habeen barkii baan xalay ilaahay waxaan ka baryay inuu waddankeena hagaajiyo oo dalkeena noo dejiyo oo nabad ka dhigo oo dawlad xoog leh oo karti iyo ammaan iyo raganimo leh uu ilaahay subxaana wa tacaala inoo ka dhiso horta ilaah baan leenahay nin ilaah lehna looma dardaaro wariyo laakiin waxaan idiin sheegayaa this is going on Kenya iyo laba waddan oo carab ah haddii Soomaalidu ay fahmi weydo oo Soomaalidu ay go'aan adag ka qaadan weydo ciddii aado safar ku aadana xataa laga mamnuuci waayo dalka inay soo gasho Soomaaliya khatar bay ku jirtaa Saudi Arabia iyo Emirates iyo waddanka Kenya Soomaaliya aggression aan qarsoodi ahayn oo public ah oo banaanka yaalay ku hayaan sidii loola dhiil garayn lahaa waa in la helaa si la isaga magaranaysaa la isaga dhiciyana waxa ay noqonaysaa inay Soomaalidu ay hesho oo ay u baahan tahay inay hesho dawlad xoog leh oo dhisan waxaan idin tusayaa clipka inta ugu khatarsan baan idin tusayaa uguna muhiimsan bal ila daawada are conspiring with the government of Somalia to steal our ocean. This is why. Similarly, did you know that Kenya has over 3 million acres of ocean land from which we can farm 11 million tons of fish every year? If we caught this fish and sold it, did you know that we would make 750 billion shillings every year? This is enough to build a full SGR from Mombasa to Kisumu every year. The Somalians want to steal this resource from us
and share it with the pirates plus Al-Shabaab. This is why our public notice to the government of Somalia, the colonizers, and the ICJ is this: no way. Not an inch more, not an inch less. And now, our final notice. It is to the colonizers of the sea and the International Court of Justice. We have noticed a new scramble for Africa, but not for its lands. The new scramble is for our waters, and the methods of the colonizers have not changed. They arm brothers and then encourage them to fight. As we fight, they steal from us and petition our resources. Turkey has set up a $50 million military base in Somalia. It is their largest base in the world. The base is said to train up to 10,000 Somali soldiers. Qatar is also spending over $200 million in Somalia. qaybta ugu khatarsan marar badanna aan ka hadlay aana raba inaa maqashaan oo dhagiina ku maqashaan waa qaybtaas. waxaa jira laba wadan oo aynu ognahay inay support Soomaaliya u hayaan, rabaana Soomaaliya in ay ka baxdo dhibaatada ay ku jirto. labada wadan, wadanka koowaad waa wadanka Turki la yiraahdo. wuxuu sheegay Turki $50 milyan inay ku kharash gareysay base ay ka dhisatay Soomaaliya oo military base ah, inay ballan qaaday minimum 10,000 qualified army soldiers inay u train gareyso Soomaaliya. 10,000 oo nin oo si fiican loo tababaray. arrintaasi waxay ku tahay threat Kenya. already Kenya iyo Ethiopia complain bay geeyeen UN-ta. ay leeyihiin Soomaaliya ciidamadeedu they are growing fast and they are growing tough. mana aqbali karno. marka waxaa la yidhi ciidan si caadi oo legit ah loo tababaray, dowladda governmentiga ahina ay leedahay, maxaa dacwo uga qabtaan? ma Al-Shabaab baa iyaguna? maya, waxay dhaheen si too much bay speed bay ku socdaan. speed oo speed hadday ku socdaan maxaa idinka galay? idinkuba ciidamadiina waa idin tababaran yihiin, waana ka badan yihiin 10,000 oo ciidan ay ka qaylinayaan. this is the fact. 10,000 oo nin oo Soomaali oo tababaran Kenya 3 saacadood bay ku qabsanayaan. xaqiiq la og yahay wey. Kenya iskama celin karto Soomaaliya. nin Soomaaliyana nin Kenyaati ma hor istaagi karo. that is what we are and who we are, and we believe in ourselves. dad isku kalsoon oo adag oo karti iyo raganimo leh wey. waxay ka keeneen buuq iyo qaylay ka keeneen oo qaylay ka kiciyeen. waxay kaloo sheegeen qadar inay bixinayso fankii ay ku dowladda lagu maalgelin lahaa oo ciidamada loogu train garayn lahaa. dhinaca kale Kenya waxaa lacag saas milyanisa iyo Ethiopia u siinaysaa wadanka Emirates iyo Saudi Arabia baa waxay lacag ugu wadaan. waxaan rabaa marka hal wax inaan idiin sheego. Soomaalida marar baa waxaa laga dhaadhiciyaa niman liidara ah intay ordaan oo u tagaan Emirates inay leeyihiin waxaanu raadinaynaa xoogaa iyo dhaqaale iyo maamul goboleedka yaga si dadkii qayb loo jabsado oo qalbigoodii loo helo. laakiin this is the fact. cadow nin inta u doontay lacag ka soo qaadanaya, soor qureed soo qaadanaya, wuxuu la imaanayo la soo noqonaya waa taqaaniin. wuxuu la soo noqonayaa lacag ujeeddo leh oo ujeeddadu maxay tahay? burburinta dalka iyo Soomaalida kala qaybinteeda. this is the benefit. waxaa kaloo rabaa inaan dadka shacabka u sheego, weli ma haysaan nin intuu tegay oo meel kale tegay oo lacag ka soo qaaday idin qaybiyey ma haysaan? ama wax idin ku qabtay? lacag intaa boorsa la wataa weligiin boorsa ma idin soo gaartay? kulligood waa taajiriin billionaires wey, guryo ay ka wada iibsadaan. mid kastoo shaqada ka taga fiiriya meeshuu aado iyo wuxuu noqdo. the real enemy of the Somali people waa the Somalis. the real enemy, cadowga aan leenahay ugu horeeya waa dadkeena wey. dadkeeniiba waxay noqdeen waagii hore oo Soomaalidu ay noolayd oo dhaqanka lahayd oo akhlaaqda lahayd oo ay diinta lahayd oo arrogant cowboys ay ahaayeen. camel boys iyo cowboys
arrogant aan ogolayn soor qureed wuxuu yiri ninkii ingiriiska ah oo buugga qoray 1905 niman Soomaali oo saa u soo godgodan oo caata ah oo gaashaan wato waran haysto faras ku joogo intuu sawaray buu yiri nimanka marka aragtid waxa kaaga muuqanaya gaajo laakiin buu yiri kibirka ku jira adiga oo dhan waxay ku arkaan buu yiri bakhti bay ku arkaan waana highly intelligent buu yiri ninka ingiriiska ahi raalli ka noqon maayo buu yiri dadkan inay survive gareeyaan si kasta intuu yeelay buu ingiriisku degi waayay Soomaaliya ingiriis iyo Italia dhagax bay Soomaalidu iskaga saartay iyagoo diyaarada la dhacayo oo laynaya Soomaali arkaysa on qori haysan seef waran fallaar iyo dhagax bay iskaga saartay Soomaalidu marka haddii ay wadaniyad yeelato dadkaas waagii hore waxaa loo yaqaanay daba dhilif iyo daba koodhi iyo magacyo qashin u lahaa ninkii lagu eedeeyo inuu daba dhilif yahayna Soomaaliya kuma noolaan jirin uu carari jiray meelahaas u yaaci jiray nin alla ninkii lagu eedeeyo daba dhilif inuu yahay ama uu dad shisheeyo u shaqaynayo waxaa lagu eeday wadanka uu iskaga carari jiray hadda halkaasaynu maraynaa waxaynu maraynaa in loo kala dhuumanayo in nalooba sheegayo publicly niman mucaarad baan nahay laba Kenya degan oo Kenya dhex fadhiya mucaarad baan nahay kuwii u saxiixay heshiisyadii ay hadda dhulka iyaga ku haysato nagula qabsanayso hadda Jubbaland bay rabtaa inay qaadato Jubbaland si ay u xalaalaysato askarteediina waa u joogtaa babad ay iyadu wadatana waxay rabtaa inuu madax ka ahaado qadiyada in la ogaado way Jubbaland ciidankeeduna inuu joogo babad ayaga u shaqeeyo oo afkaartaas aaminsan oo ogol aaminsan maaha ogol because isaga la gadanaya oo lacag la siinaya waxaan kaloo rabaa inaan idin sheego Soomaalidu waxa laga yaabaa dadka qaar kood inay kugu beer la xawsadaan muslim baan nahayo Sacuudiga iyo Imaaraadku wadal muslimiin waxay ina tarayaan I tell you one thing Palestine nimankay ka noolaan laadahay waa labada wadan dalka kaliya u hadla waa Qatar iyo Turki Libya nimanka burburiyay oo halka dhigay oo hadeer wali functionka kuwada u kala qaybinaya waa labada wadan Sisi nimanka meesha keenay oo inqilaabka kala shaqeeyay lacagtana siiyay waa iyaga Abdul Fattah Sisi markii uu intuusan wadanka qabsan waxa haystay Maxamed Mursi nin la yiraahdo oo doorasho ku yimi oo diin leh oo ahlu diin nin diin leh islaax buu ahaa waxay ula dirireen sida ay tahay ula dirireen waxaan xasuustaa Sacuudigu wuxuu weydiistay 600 milyan oo deyna isiiyo yiri oo aan dalka ku maamusho intay lacagii ka xirteen militarigu markaas ay u diideen Sisi markuu qabsadayna 12 bilyan bay siiyeen Masar iyaga saa u galay Suudaan waxa ay ku hayaan waad ogtihiin ninkii hadda askariga ahayo Suudaan qabsaday markii horena iyaga abaabulayay inqilaabka in la kiciyo oo dawladda dadka lagu kiciyo markii Umar Bashir la riday askarigii meesha qabsaday oo maalintii koowaad markuu magacaabay maalintii labaad inqilaabayna waxay u ballan qaadeen $10 billion hadhiibin bay dheen xukunka ha wareejin si aan nin shacaba oo aysan iyagu rabin uusan meesha u qabsan nimanka muslimiintu ay ka noola Iraq nimanka burburinayo gogoynaya waa Saudi Arabia iyo Emirates Qatar waxay ku hayaan waad ka war haysaan oo hadda isolation ay galiyeen international community ay ka dhaadhicinayaan oo Mareykankiiba wuxuu leeyahay war naga daaya waxa sheegaysaan run ma waa ognahay too much batin ruushki iyo baaqayliyo leh maxaa laga rabaa Qatar wax kale ma Islam iyo muslimnimo oo nimankaas ay ku dhaqmayaan ma jirto therefore dadow anigu hal kelmadaan idin oranaya Soomaaliya kaca oo qabyaalada iska daaya oo ninkan daalinka oo reerihiin ah oo qabqablaha ah oo idin hor ordaya iska daaya dabayacaysan xishooda wallahi buusan gurina idin dhisayn aruurna idin biilayn isaga wixiisa ku shaqaysanaya dhiigaaga iyo dhulkaaguna gadanaya inta baraarugtaan ninka hooyada haday dhashay your own mom ninkay dhashay hadii uusan dalka iyo dadka dantiisa uusan ka shaqaynayn maxaa ku daba dhigay why do you care maxaa qabyaalad ugu daba ordaysaa qof aan ummadda iyo adiga midna wax idin ku oolin maxaa ugu daba ordaysaan why ma garan kara anigu waxaad u daba socotaan nin daalinaho nimankaas waxaas waa propaganda clip ay samaysay dawladda Kenya waxaa loogu talagalay inay dadka ay kiciso shacabkeeda kiciso midba wuxuu soo qorayaa waxa taageersan tahay Qatar ma taageersani Qatarna ma rabo anigu Soomaali baan ahay
khabiif baa tahay aan xishoonayne waxaad yeeshaa ord shaqo yeelo oo ramadaanka ammaana lagaa helo waxaa naf lahayn baa tahay qadarna weligay ma tegin umana socdo mana lay tusaba aniga carab oo dhan ayagoo dhan may hanaga baxeen dalka iyagana ha noo daayeen soo ma arkays that's what I believe hadday yacni rabaan inaan ganacsi iyo wada shaqayn yeelano ha lays xurmeeyo yay noo soo dhaafin intay noo jiraan annaguna intaan u jirno u dhaafi mayno waxaan isdhaafsanaynaa badeecad iyo waxbaan kala iibsanay annaguna badeecad baan haynaa iyaguna lacagtii baa hayn waxbaan kala gadanaynaa laakiin ma doonaya anigu nin ajnabi waddankayga inuu u taliyo ma doonayo cidduu doona ha ahaado ma arkaysaa turkiga exception way and I will say that once again waxaan idin xasuusinayaa David Cameron hadalkiisii Ottoman Empire inay geeska Africa ka soo noqoto ma aqbalaynu yiri interest bay leeyihiin interestigoodu waa inay expansion ku sameeyaan ama ay revival ku sameeyaan Ottoman Empire I don't have a problem with Ottoman Empire boqortooyada Cusmaaniyada dacwo kama qabaan Cusmaaniyada in la soo celiyo diin Islam iyo shariica Islam bay ku dhaqmaysaa in la soo celiyo that's what I want in islaamka la ballaariyo wadamada muslimiinta ana meel ay hoos galaan iyo imperatoriyad loo sameeyo that's a good thing layguma dirayo laakiin isagu hadalkaas uu sheegay maalintii ay abaartu ku dhacday Soomaaliya oo adduunka dhan ka sii jeestayna ninkii u soo gurmaday Erdogan buu ahaa nimanka infrastructure ka dhisaya wadanka ciidamadana tababaraya waa nimanka waa ogolahay inay wadanka joogaan nin alla ninkii wax ii qabanayo waxtar ah oo waxtar runa ii qabanaya bal waxa ay tustaan laami ay Dubai dhistay itusa wada ay Kenya dhistay itusa waxa ay tustaan deked ay dayactirtay Kenya iyo Emirates mid ay rabto inay baabi'iso oo ay ka dhigto meel laga guuray mooye bal raadiya hani toosa oo hurdada ka kaca waxaan waliba khaas ula hadlayaa dhalinyarada shabaabo dhalinyaro dhulka ka kaca arinta ay ku jirtaan iyo reer hebel ina u kala raacdaan niman qabqablayaal oo isku ceyrsanaya lacag bay isku ceyrsanayaan nin dan ku haya ma jiro lacag niman isku ceyrsanayaan kala raacdaan oo kaasna waa reer hebel oo cidiiso dhima ay ku daba safato ay meelahan ka qayliyaan anigu cidda aan qabiilka la ahay kuwa ka socda ma rabo hadday Kenya iyo Ethiopia iyo Emirates iyo Sacuudiga ay raacaan I don't want them I have nothing to do with them taasoo kale aan ka rabaa nin walba ninka xunka oo isaga daba socda ha yiraahdo kuguma jirno mana rabno mana doonayno dan waxa imaanaya dhaqdhaqaaq wadaniyadeed oo Soomaali ah oo Soomaalinimo ah markaasaan waxaan gaari karnaa waxa good news ka waxa weey Kenya si kasto ay ciidan u haysato si kasto ay dawlad u haysato Soomaaliya haday isgalaan iskama dhicin karto waana ka adagnahay ilaahay waa naga adkaysiiyay waana ka dhacsanaynaa dalka iyaga waxaan laakiin idin tusay clipkaas wadankiina waa loo socdaa dadkii loo soo marayay oo bridge-ka u ahaana waa idin kala kaxaysteen oo waa la kala safantiin war sida la isu dhaamo oo hurdada laga kaco oo waxa la akhriyo oo adduunka lala socdo oo adduunka laga warhayo wadankaagu waa wadan aad qaali u ah oo qiimo badan buqcad yar oo very expensive ah way cid walibana waa rabtaa yaan laga qaadin adoo reer hebel ku xumaynaya Jubbaland mar dhow Kenya galaysa hadii aan wax laga qaban oo reer Jubbaland aysan kicin oo niman babad aan laga ilaalin doorashada soo socotee doorashada nin Kenya meel mowqif oo adag ka taagan oo dhahay ciidamadooda haygala bixeen nimaan ahayn lama dooran karo markaasa tiin dad xora inta ay ciidamada Kenya ay dhex joogaan magaranaysa Kenya ay Soomaaliya dhex joogaan we cannot accept nin babad u ah iyagu ay wadaan ama lacag siinayaan ama maalin walba Nairobi u dhoofaya inuu madax noo noqdo in la yeelana maaha anigu cidna magacooda sheegi maayo farna ku fiiqi maayo laakiin waxaan idin siinayaa characteriskaas ninka ku aragtaan ka leexda ninku doona ha cidii aad ku aragtaan sawirka iyo sifada yeesha ninkaasi waa daba dhilif lacag doona wax danana aan kala hayn dalka iyo dadka banaanka laga maro intaasaan rabay inaan idin iraahdo wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم